gabadhii Soomaaliyeed ee aabaheed xabsiga ku dayrisay oo loo haysto faraantii 1 milyan oo dollar jooga dawarsi ama deynsi kay ku keentaba ninkeedii ayaa uga fadhiya inay u soo celiso faraantigii dhaymanka ahaa ee arooskeeda uu u xiray inkastuu yahay ciyaartooy guuleystay waxay moodaysay maalqabeen malyuumaadkiisa aan waru hayn wuxuuse ku noqday bakhiil xisaabta aan laga hoos bixin karin ama inagumeed aaminsan nin iyo xoolihii aragti baa ka dhaxaysa oo aan xaaja dumar wax ka aqoon xaawalayna xeerin waa qofta ku jeesjeestay kuna jisaartay aabaheed oo duruufo nololeed la daalaadhacayay xabsina ku qaatay kalabar cimrigiisa hadiyad ay la tagtaa ha joogtee waxa daalac loogu raacay lacagihii ku baxay tamashlaha safarkii jasiiradaha aadka loo jecel yahay hadda ogow sida gabdhaha faceeda yarad iyo sooryo lagama bixin meher islaam laguma guurin intay nin ajnabiya cidla ka raacday ayuu ka danaystay oo ka daldoorsaday kadibna sumcadeedii dhulka ku jiiday mawjado fadeexo iyo fadqalala'ana waa uu ku kiciyey fadlan like saar muuqaalkan haddaad noo sheergaraysana waxaan goyn doonaa malaayiin mayl mahadsanid Maya Jamac waa gabar asalkeedu Soomaali yahay oo caan ku ahayd tebinta barnaamijka telefishinka Jam oo ay uga howlgalaysay xaruntiisa London waxay ku dhalatay magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska waxaana iska dhalay aabe Soomaaliya iyo hooyo Swedish ah inkastoo jinsigeedu Soomaali dhalada yahay haddana waa hiiraac qaadatay dhaqamada dadyow kale kuna biirtay kumanaanka qurbaha ku dhaqan doorsoomay waxayna xiriir wada noolaansho oo sharci darro la wadaagtay fanaaniin iyo ciyaartooy dunida caanka waxaana ka mid ah ragga ay nolosha la soo wadaagtay Benjamin David Simmons waa xirfadle sare iyo ciyaaryahan kubadda kolayga aad loogu tixgeliyo aabaheed waa Xuseen Jamac oo ku dhashay dalka Ingiriiska kolkii qoyskoodu ay ka soo haajireen Somaliland shaqadiisuna waxay ahayd inuu online-ka wax ku kala iibiyo balse waagii dambe ayuu u xuubsiibtay inuu baararka waaweyn ee qamriga ka shaqeeyo oo uu cabitaanada shubo markuu barwadaha ku sarqaamo ayuu isku bedelaa alaalax geysta dambiye aanu ku talagelin wuxuuna ku mutay 10 sano oo xabsi ah taasoo markii dambe sabab u noqotay in isaga iyo xaaskiisu ay kala tagaan markii ay ku tiri aniga keligay ma hayn karo 2 caruura ee waxaad ogaataa mar dambe haddii lagu xiro inaan isdaynay sidaas ayuuna aabaheed Xuseen Jamac ku sheegay waraysi uu siiyey dasan Maya Jamac ayaa barnaamijkeeda hadda dadka kula talisa inay ka fiirsadaan cidda ay guursanayaan iyadoo leh inaad hesho lamaanaha kugu habboon ma aha arrin fudud gabadhan Soomaaliyeed ninka faraantiga dheemanka u haysta waa Benjamin Simmons oo ah ciyaartooy kubadda kolayga dalka Australia waana ninka saddexaad ee ugu mushaarka badan NBA-da wuxuuna haystaa lacag ka badan 8 milyan oo dollar lacagta inteeda badanna waxay ka timaaday ciyaarta kubadda kolayga waana xirfad uu soo bilaabay qiyaastii 6 sano ka hor gabadhan oo cuqdad ka qaaday habdhaqanka aabaheed ayaa iminka sheegtay inaanay helin nin wanaagsan oo kaliya uu ku soo aado mid aabaheed oo kale ah horey waxay ula noolayd Stormazy oo ah raabar asalkiisu Gaaneys yahay laakiin hooyo cadaan ahi ay dhashay waxayna ku sheegtay inuu sida aabaheed oo kale u rabshad badnaa cabtooyna ahaa ugu dambeyntiina ay danahooda kala raacdeen isla sanadkii ay kala tageen 2019 waxay iscalmadeen Ben Simmons oo ay iska dhaleen aabe madow iyo hooyo cadaan Australiana waxayna fagaarayaasha ka qireen inay isu hayaan jacayl dhiigga iyo dhuuxa dhaqaajiyay Benjamin Simmons ayaana Maya Jamac wuxuu farteeda geliyay faraanti Diamond oo joogay 1 milyan oo dollar kaasoo isaga qudhiis uu soo dooqay 6 bilood oo ay wada joogeen kadib waxay cilaamiyeen inay kala tageen shaqooyinkooda awgood iyo kala fogaanshaha goobihii ay kala deganaayeen ee London iyo New York waxaase la yaab iyo aan fariir lahayd in ciyaartooyga kubadda kolayga ee Ben Simmons uu sharciga ka dacweeyay si ay faraantigiisii ugu soo celiso maadaama ay kala tageen gabadha Soomaaliyeed ee Maya Jamac waxaana wakiilkiisu uu Maya Jamac u keenay warqad garsoorka ka socota oo looga dalbanayo inay faraantiga dheemanka soo wareejiso haddana gabadha Soomaaliyeed durbadiiba waxay aqbashay inay celiso faraantiga haddii ayba nacday noloshiisana ay ka fogaatay kii faraantiga sida kalgacayl kale ugu xiray waxaana faraantigan uu ku fadhiyaa kala bar hantideeda maxaa yeelay lacagteeda cadaanka waxa lagu qiyaasaa 2 milyan oo dollar bishaaro ma tahay hooyo Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha gaar ahaan Mareykanka Canada iyo Yurub ma dareemaysaa inaad u baahan tahay inaad hesho dhaqaale ama dakhli ka madax bannaan midka hadda samayso ma doonaysaa inaad muddo kooban ku hesho maal adduunan xad lahayn ma tahay qof jecel inuu noloshiisa ku sameeyo isbedel dhaqaale khibrad ahaan iyo fikir ahaanba
in badan ma ku fikirtay inaad samayso ganacsi kuu gaara mase ku dabreen duruufaha dhaqaale ma tahay hooyo jecel iyadoo ubadkeeda haysata inay dhaqaale samayso una baahan caawimaad haddaad ku nooshahay wadamada Mareykanka, Canada, Yurub iyo weliba wadankeenii hooyo waxaan ku haynaa fursad ganacsi oo in ka badan 160 wadan aad kaga samayn karto dhaqaale dhaxalgala shirkadda weyn ee Forever Living oo Soomaali badan u fidisay fursad ganacsi waxay kugu bishaaraynaysaa fursad aad dhaqaale kooban ku bilaabi karto haddii ay ka go'an tahay isla markaana aad tahay qofka loo baahan yahay fadlan la xiriir manager Cusmaan oo dad badan ka caawiyay sidii ay u gaari lahaayeen isku filnaansho maaliyadeed iyo khibrad ganacsi manager Cusmaan wuxuu ku dhexleeyahay Forever Living ganacsi ka shaqeeya wadamo badan adigana wuxuu diyaar kugu yahay WhatsApp number +1 41 65 79 83 waase haddii aad awoodo inaad bilowdo ganacsigan oo ay ka go'an tahay